بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku ammaan yeelo. cidii dhibanibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah uu fiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariista, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. ummadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala badbaadiyo. ciidamadaas la dhaawacay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hoo boogadhayo, kuwa dhintayna Ilaahay u naxariisto, shahaadaha u aqbalo. mujrimiinta ku soo duushayna Ilaahay ummadda ka qabto. waxaan kaloo ku faraxsanahay reer xarar dheer inay si fiican isaga dhacsheen, inay si wanaagsan isaga dhacsheen, banaanka iska mariyeen. gobbatiin iska dhacshan nimankaas xday oo meel daran u leexday oo mujrimiin oo meel kale laga soo abaabulay. maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob. qadiyadii dastuurka oo Puntland ay ka soo saartay warqad, iyo Xasan Sheikh iyo groupkii isaga ku weheliyay qadiyada dastuurka la bedelayo oo iyaguna war ka soo baxay cusub. kelmad baan ka oranayaa. madaxweynayaashii hore ee Garowe tagay mid ka mid ah Sheekh Shariif inta uusan Garowe tagin kelmad uu yiri oo ahayd dawladda hadda joogta waxa ay ku shaqaysaa, faafisaa, hirgelisaa, dhiirigelisaa, soo saartaa, abaabushaa qabyaalad cad. dawladdii ka horreysay waxaan kula diriiraynay nidaam iyo system buu ahaa, laakiin dawladdan waa qabyaalad iyo wax ka ratibmay na kelmad baan ka oranaya. waa mar koowaad waxa soo dhacay khabar cusub. Puntland waxay soo saartay warqad ka dambeysay shirkii jaraa'id oo labadii madaxweyne hore ay ku qabteen Garowe ay ka soo saareen iyo xildhibaanadii la socday war murtiyeedka ay soo saareen ka dambeysay. warqadaas waxay Puntland ku sheegtay haba yaraatee hal faqro oo laga bedelay oo aan heshiis lagu ahayn ama lagu daray ama laga saaray dastuurkii qabyo qoraalka ahaa koobiga ay hayaan inaysan aqbalayn, inaysan aqoonsanayn, inaysan ku dhaqmayn, inuusan dastuur u ahayn. arrintaas waa arrintan ka digaynay usbuucyadii soo socday oo dhan. halkaasaa la gaaraya. waa faahfaahin doonaa dastuurka iyo sheekadiisa. halkaasaa loo socdaa. war ka jooga, war dalka gacanta ha u gelinina ajnabi. war islaantii gaabnayd oo ingiriiska ahayd Catriona Lane yay dalka madaxweyne ka noqon. war xasan oo ka daa, xasan waa diiday. halkaasay tagtay, warqadaasay soo saartay Puntland. degdeg waxaa u shiray madaxweyne Xasan Sheikh, guddoonka baarlamaanka iyo madaxda baarlamaanka oo dhan. waa la wada fariistay. haddii la wada fariistay runtii baa la wajahay. xildhibaano badan oo hadda madaxweyne xasan uu isku hadlaynayo inay codka siin doonaan oo qaar badani ay ka soo jeedaan Puntland waxay ku joogaan labada wasiiroo kor loo hayo baa mid la yiri waa laydin siinayaa qolada reer Puntland. kuwa kaloo reer Gada iyo Jubbaland ka soo jeedana iyagana waxaa la yiri kursigii wasiirka amniga baa lagu siinayaa. qof walba waxaa loo sheegay adaa lagu siinaya. kulligood waa yaacayaan marka. madaxweynaha iyo tiimkiisii waa la iswaraystay. waxaa la yiri haddii aynu baarlamaanka hadda arrintaa baasino, madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweynehan baasino, dastuurka laba qaybood buu qaybsanya. qayb waa structureka dowladnimada, qaybna waa maamul iyo nidaam iyo magaranaysa wax siyaasad iyo ku qaab leh. structureka iyo qalfoofka dowladnimada lama bedeli karo. waxaa lagu bedeli karaa afti dadweyne iyo gobolada oo dhan oo soo dirsada dad iyaga wakiil ka ah oo mas-uul ka ah oo ay ku kalsoon yihiin oo ay soo dirsadeen si gaara ugu soo xilsaareen dastuurka inay ku matalaan. dadka iyaga ahi ma aha xildhibaanadan wasiir baa lagaa dhigayaa iyo lacag baa lagu siinayaa lagu kala gadanaya maaha. waa dad delegate ah oo gobol walba isagu soo dirsanayo oo iyaga ku matalaya. isbedelka marka dowladnimada oo ay ka mid tahay laba xisbi keliya loo tartamaya, oo ay ka mid tahay madaxweyne iyo ku-xigeen baa laga dhigayaa oo prime minister waa laga guurayaa. structureka dowladnimada taabanaya haddaan heshiis laga ahayn dee haddii la bedelay haddii kale horey baynu usoo aragnay wax la bedelay ama wax lagu daray dastuur oo aan shaqayn. horey baynu usoo aragnay.
marka soo in cilmi laga barta maaha wixii hore u dhacay shalay haddii nin isku dayay inuu wax ku daro aan raalli laga ahayn oo qolo ay diidan tahay ama qolyo ay diidan yihiin hadday shaqayn weyday soo in la iska daayo maaha marka waxaan diyaar loo ahayn oo heshiis laga wada ahayn midda kale what is the rush dastuurka xasan waxaan weydiinaya dastuurkan horta Norway iyo dalal ku talagalay Soomaaliya inay baabiyaan iyo Ethiopia iyo Kenya iyo ay soo qorteen oo qabyo qoraalka hadda maraya oo 10 jeer mar la xaday oo mar la bedelay mar xagga la geeyo saxiix yaale mid la oran jiray uu asal ahaa mawjada maxaa loogu baahan yahay aw dastuurkii Soomaaliyeed aftida loo qaaday 1961 Soomaaliya oo dhan afti looga qaaday aqlabiyadu saaxiqa 99.95% ay ogolaadeen aw dastuurkaas maxaa diiday Soomaaliya dastuur bay lahayd oo dawlad bay lahayd haddii dawladii burburtay dastuurkiina ma burburay isaga in lagu duldhiso maxaa diiday maxaa laynoo ku soo caminayaa xataa wadaadada dhex fadhiya baarlamaanka marka kuwa wadaadada oo difaacaya dawladdu hala taageero leh baan u jeeday 18 qof aan gaarin oo laguma qaangaaro wax ka yar 18 يعني حتى دين تيبا لقد احكى له ميسانية بلايا الأخرية وحا لبداليا ناشنالتي قفك الصومالي هيوية واد مغليسين كوا أصوى فريستي وديال جواري كم دينا أصوى فريستي صومالي معها قفك دقن DDS إيو NFD صومالي معها إيو جيبوتي معها صومالي وأصوى فريستي قفوا يديس يا بيس بصوماليين دستور كيبا يكون قرنتا دستور كوا حالوغا عربية دولة النمو رسمية baa ku qoran oo laga baaraan degay oo dad khubaro ah ay u fariisteen oo aan qabiil iyo aragti kale aan wax ku eegayna wadaniyad wax ku eegay oo islaamnimo wax ku eegay nimankaas marka dastuurkii ay nooga tageen oo dhaxalka ah oo Soomaaliya oo dhammi ay ogolaatay maxaa diidan in wax lagu dul dhiso isaga wixii laga bedelo wixii lagu daray lagu daro maxaa diidan maxaa dhacday marka Puntland markii arintaas samaysay Xasan iyo tiimkiisa waa shireen waxay yiraahdeen gudoonku waxaan ma riixi karno haddaan xataa baasino oo sidaa rabti aan u baasino labada qodob oo structure-ka dawladnimada taabanaya madaxweyne ku xigeen iyo laba xisbi ma baasin karno mana wadi karno mana shaqeynayso xildhibaanada oo dhanna garow waa looga yeerayaa shirka shirweynaha oo Soomaaliyeed lagu qabanayo dawlad baa lagu dhisayaa dawladnimadeena oo dhan baa la burburinayaa baarlamaankana waa lagu kala tagayaa نجدة مدحوينه لبدا نجدة كوبدل رئيس الوزراء مدحوينه عايرين كرو قد يدان أنا ولي أدفوكيت كوها رئيس الوزراء إنه عقبات كل نقطة مدحوينها لا ما بهنا مدحوينها إسكال جدها سجل دورت إسكال نيل لا شقية أو شقادة الله وضوء إسكو تيمي يهين بأوبهية نيل إسكال عقبات كل نقطة أو وبالانس جرينية وقبيلة غير بلبو مثلا بالانس بخارجية وحالله ما بهنا رئيس الوزراء وينو مدحويني سلا شقية هدي مدحوينو حد قلب سمايو وينو جوجيا ويرا جوجي مدحويني أما وزيرها هذا أما رئيس الوزراء هذا ضدك لا شقية مدحوينه وينو قبان كران هدي وكدي ذو مرك ضل كان وربا إنه مجي سايو كبر بريا رئيس الوزراء لباتر وجيس تقرن لماذا هنتي ذا أمده وينو يسعسيلا يرا مدحوينو كل شقين مايو أرنتاس كل شقين مايه إنه كده هدو كدي له وينو يسعسيلا لكنه لا تقالمه أو يسيا لدبدا وبخيو سيدي دي هالقبين ويرهد دالك أنا مدحوينك oo jahl inta la isla soo qalajiyo isagoo qabyaalad iyo qabiil dabada ay ka soo afufayaan ma baahna marka waxay dhaheen waxa ka dhigtaa ra'iisul wasaare madaxweynuhu keeno isla madaxweynuhu xilka ka qaadi karo xisbiyada labada ka dhigteena alaalmiina saddex ka dhig arinta wuu aqbalay muxuu ku aqbalay kululeysa lagu dhuftay irbad kululeysa fiican yahay hadduu aqbalay runtii soo wajahay kadib markuu buuq iyo qaylo kiciyay oo mudaharaad iyo sameeyay oo wax badan la sheegay oo la caytamay oo xataa leeyahay dastuurka isaga leh dastuurka hadaad ugu leedahay qoro mid aad leedahay qoro reerkaaga iyo family-gaaga iyo xaasaskaaga ku maamushay laakiin mid ummadda Soomaaliyeed ka dhaxayso sidii aad horay u tiri Xasanow inteena Muqdisho joogtaa go'aan kama gaari karno aad horay u tiri meeshii bay dadkoo dhan u taagan tahay shalay meesha taagneed bay maanta taagan tahay halka ku jooji qadiyadaas marka waa guul inuu aqbalay in isbedel dhacay in structure-kii dawladnimada la badbaadinayo
wixii la soo qortay oo tirada badnaa ee la dastuurka waa lagu darayaa qadiyada doorashadu waa arrin laga negotiate garayn karo oo isaga iyo maamul goboleedyadu ay ka tashan doonaan oo siyaasadeed laakiin structure-kii dowladnimada hadduu ka nabad galo waa alxamdulillah qodobka labaad madaxweyne shariif wuxuu yidhi dowladdaanu qabyaalad baa dhaqan u ah waxaan aragnay madaxweynaha hadda xilka haya inuu ku socdo kelmado hadda ka hor laga qoray nin la yiraahdo Sambaloolshe oo ahaa yacni hadallada guryaha iyo xaafadaha iyo markii qabiil isu bareeraan oo keligood ay yihiin aragtida qabiilkana ay wax ku dhisayaan ku dhisnayd oo annaga asaasa iyo haysaa la yeela niman hawiye ahayn waa inuusan madaxweyne noqon karin wax noocaasa isagoo wax ku dhisaya eed loo jeediyey xilligiisii hore inuusan reerkiisa xilalka wax ka siin inuu ku safay xilalkii oo dhan dad badan oo qabaa'il kala ah oo 4.5 ku joogay intuu xilalkii ka qaaday inuu ku wada bedelay dad beel gaar ah arrintaas ceeb wey waa loo wada jeeday 10 jeer laga hadlay horey baan uga hadalnay madaxweyne Soomaaliya oo dhan madaxweyne u tahay wiilka jooga qandala iyo wiilka jooga barbara iyo wiilka jooga afmadow kulli adaa madaxweyne waa inta u dhaxaysana adaa madaxweyne waa in ay xilkii ay xaqa ugu lahaayeen dowladda ay ka heli karaan awal baa shaqaalaha hoosoo dhammi u badnaa dadka magaalada dowladdu ay ka dhisan tahay degan haddii marka intii kaloo agaasimayaashii iyo ma garanaysaa wixii shaqaalihii technocratka oo dhan inta dadka laga cayriyo reer hebel lagu wada guro ceeb wey dhaqan xumo wey wax loo jeeday bay ahayd oo dadku la yaabanaayeen shariif waa isbeeliyey marka waa faahfaahiyey bannaanku soo dhigay maxaa ku xigtay laba nin bay soo direen dowladdii iyadoo hadalkiisii bay caddayn usii noqotay laba nin bay soo direen waxaa la soo diray wasiirka arrimaha gudaha muxuu sameeyey dad buu soo shiriyey wuxuu shariifku inuu garowa aado dadka halkaan fadhiya uma cuntanto umana qabanto madaxweynihii hore oo maxay ugu cuntami wey madaxweyne shariif madaxweynihii soomaaliyeed ma ahayn garowa soomaaliya maaha dadka degan madaxweyne uma ahayn adigu hadda wasiir uma ahid madaxweyne xasan sheekh madaxweyne uma aha waxaas soo qabyaaladii laydinku haystay maaha dadka degaankaana markaad leedahay xasan baa iskale dastuurka inta la mudaharaaday la leeyahay yacni wax la yaab lay noqotay waa qabyaalad waxaa la soo diray madaale waad maqlaysaan wax ku hadlay isaga ceeb kalaa u dheer been cad buu sheegay waana official wuxuu yidhi labadii madaxweyne goortii garowa tageen siciidani wuxuu yidhi war anigu idinkulama jire beleda aad la wareegaysaan ila dhaafa waa la qoslayey beentaa uu sheegay raalligelinna kama bixin shaqadiisiina kuma waayin dhaqan xumo baa u dheer dowladda boobka hantida qabyaaladaynta dowladnimada burburinta institutionska faamiliyeynta iyo qaraabaynta dowladnimada xilalkeeda waxaa u dheer dhaqan xumo been cad ninkaasu beentaasu sheegay cad dee meeluu kaga toobad keenayna maana arag saacada kadib markii uu hadalkaa yirina warqad kulul oo dharbaxaaba soo baxday oo ka soo baxday puntland qorshuhu marka see u dhacay xagga garoowe aan idinka dabageeyo madaxweynayaashii hore markay meesha tageen tiim baa la socday nin walba saddexdoodii kii ay u tageen iyo labadii yimi saddexdoodii tiimamkoodii baa la shiriyey waa shireen waxay ka shireen qaabkii ay arrintan uga hortegi lahaayeen waxay soo saareen in labada madaxweyne tiimkoodu ay soo saaraan warmurtiyeed ku saabsan shirka ay halkaa tageen isku daygii ay isku dayeen inay ka dhex shaqeeyaan oo ay heshiisiyaan deni iyo xasan oo shaqayn weyday cidday ka shaqayn weyday la qoro markaa kadib madaxweynaha puntland iyo maamulkiisu ay iyaguna markaa soo saaraan ama maamul goboleedku uu soo saaro isaguna mowqifkiisa ku aadan bedelka dastuurka bedel weye dastuur wax ka bedel maaha waa dastuur cusub oo la qoranayo 9 faqradood intaasoo qodob yacni wax cusub weye kulligiis waa cusub yahay mid kasta waxbaa laga bedelay ma ujeedaa maxaa dhacday marka waxaa dhacday intii la sugayo ahayd madaxweynaha puntland inuu soo saarayo warqadii madaale arrintaa meeluu kaga noqday male wixii kale uu ku hadlayo tirada badnaayo aan tarbaqishka ahaa danka mali waxaa ku xigtaa oo labaad ninkaas wasiirka arrimaha gudaha waxaa loo soo diray shariif inuu canjarafeeyo fiqi inuu shariif maago fiqigii shalay iyo fiqiga maantana
اسكو شغل ما ولا بفقي waxaa ku xigtay Hamza la soo diray isna hurdada laga soo kiciyay ninkii hurday oo maqnaa waa soo kacay hurdadii buu ka soo kacay muxuu ku hadlay been cab buu ku hadlay wuxuu sheegay farmaajo inuu beebe mariyay xildhibaano xasbuna allah wa ni'mal wakiil magacyahood yaa la yiraahdaa xildhibaanadaas kuway xildhibaan reer Jubbaland Saraar miyaa la oran jiray iyo xildhibaan Boqorre labadaa nin baa dhintay xilligii farmaajo wax xildhibaan ah Saraar waxaa lagu dilay wasaaradii oo la soo galay wasaaradda shaqada oo la soo galay oo uu ku dhex jiray baa lagu dhex dilay al-shabaab baa galay oo dad badan ku laayay xildhibaankaas ka mid ah sida kuwa hadda ku dhaawacmay SYL oo kale iyo meelihii ka horeeyay oo xildhibaanada hadda Turkiga la geeyay oo kale ay u dhaawacmeen kuwaas oo Allah caafiye kuwaas oo kale dhintay buu ahaa oo meesha ku dhintay aan badbaadin koow marka farmaajo dilay beebu marsi Boqorre seediyaashis niman ah oo reer Muqdisho ah bay dhul isku qabsadeen iyaga dilay waa family issue maxay tahay xildhibaanka la dilay oo xilligii farmaajo dhintay oo kaaraha la marsiyay beebaha la marsiyay yuuya ra'iisul wasaarihii ummadda intay istaagay warqadaha loo soo qoray waxba loo soo sheegay been sheeg baa liir beentii baa la fakatay halkaas la martay maxaa loogu aadiyay marka isaga farmaajo waa qabyaalad kan kale maxaa loogu aadiyay Shariif waa qabyaalad dadka halkaan fadhiya uma cuntanto waxaan kala rabaa inaan Xasan weydiiyo shalay waxaa tiri Muqdisho inteena joogta waxaa tiraahdeen madaalo wuxuu yiri Soomaalidii baa taageertay oo Soomaalidu ma inta Muqdisho joogtaa jawhar ma ka qaadeen afti ma laga mudaharaaday afgooy ma laga mudaharaaday marka ma laga mudaharaaday baydhabo ma laga mudaharaaday garowe iyo gaalkacyo ma laga mudaharaaday hargeysa ma laga mudaharaaday xagee Soomaaliya sheegaysan maxay tahay dawladnimadoo dhan waxa u taqaaniin hal reer waxaasi dhaqan maahe ceeb weeye xasanow waxaanu dawladnimo maahe sida u dhahan haddaad hantidii ummadda boobtay haddaad qaadkii lacagtiisii 2 sannadood hadda guranaysid adigu aadan lahayn oo hanti ummadeed ah oo aad boobaysid canshuur haddii laga qaado qaadka ummadda iskale adigu malihid aad boobaysid haddii aad xilalkii oo dhan boobtay haddaad wasiirre weli kor u haysid haddii dawladnimadii oo dhan ku soo ururtay gacantaada iyo gurigaaga nin wasiira wuxuu yiri niman wasiir ah oo reer Muqdisho ah oo dawladdan wasiira ka baa waxay yiraahdeen shiray waxay dhaheen nin baa wuxuu yiri inaan wasiir ka ahaado dawladdan iyo inaan wasiir ka ahaa Diyatori ka ahaado farmaajo dawladdiisii tii farmaajo ka fiicnay maxaa dhacay baa leeyahay waa reer shakiisanayo isku wada reer wuxuu yiri dawladdii hore wasiirku waa madax banaana tan mashruuc yara qandaraas yara haduu yimaado ilmo uu xasan dhalay ama naagtiisii baa kugu taagan waxay leeyihiin hebel si iyo heblasi iyagaan u shaqeynaa reer baanu seerf garaynaa laakiin taa adaa wasiir ahaa adaa awoodda lahaa waxaas miyaa dawladda xasan oo dawladnimo u taqaan waxaa intaa dheer waxaa tiri caalamkoo dhan u sheegtay al-shabaab baan dhammaystiraya afjaraya wixii dhacay waad og tahay daarul nicma wixii ka dhacay waad og tahay tii ka horreysay 2 bari ka hor waad og tahay ciidamadii waa tirtirteen oo waa baabi'iseen waxba kama harin intaa hartayna waxaa ka dhimatay qabkii iyo raganimadii iyo kalsoonidii iyo qarannimadii kulli waa ka dhimatay qabyaalad baa dhex geliseen ganacsi baa la dhex gasheen dawladda nimayow ha laydinku soo gaaro intii laydiin dhiibay ha laydinku yimaado intaa ku dadaal bal intii laguu dhiibay walaalow waxuun ka mid ah lagugu yimaado dalkii laguu dhiibay oo hantidii guud oo ummaddu ay wada lahayd oo dhan waad xaraashateen xasee wax u wadaa haddana waxaa laydinkala baxsanaya dastuurkii keliya oo lagu wada joogay waxaan dhegaystay Cabdi Qaydiid oo baarlamaanka ka hadlaya kaasaa lagu wada joogaa yaanaan uga darin meesha ay joogtay yaanaan uga darin maxaa idintiida dad xil ka soo saasoo kale u dareemi kara maxaa idintiida inaad la tashataan yaad la tashataan oo idinla taliya intaasaan oranayaa wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum